بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناسنا دمان باخيارتا qiimeynta qadarinta iyo xishmada badan ee hawada nagala xidhiidhay dhamaantiin Ramadan Kareem. halkani waa xarunta guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland oo ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxaana la soo gaaray amintii aan idin soo gudbin jirnay war wixii dalka gudihiisa iyo daafaca caalamka naga soo gaaray. wararkaasina waxa uu diyaar ah oo idin socodsiin doona anigoo Axmed Saki Daahir Xasan. qodobada wararkayga ugu doorka roona waxa kamid ah madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sulaaya ayaa shir degdeg oo isugu yeedhay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland golaha guurtida salaadiinta iyo boqorada waxa uu ku wargeliyay inay gurmad degdeg ay ka galaan shaqaqadii dhaxmartay labada arday ee walaalaha gaar ahaan degmada Dharkiingeeyo oo ka tirsan gobolkaasi Sool. wafti ballaaran oo hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ayaa gaaray gobolka Awdal magaala madaxdiisa Boorama. wasiirka hoggaanka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa tababar u furay 785 macallin oo ka kala socday gobolada kala duwan ee dalka. mayrka golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Cabdiraxmaan Solteeko ayaa kormeer ku tagay dhismaha waddo ballaaran oo yeelan doonto caasimadda Hargeysa kana kooban 200 mitir. dhinaca wararka caalamkana xukuumadda dalka Faransiiska ayaa goobaha ciyaaraha ka mamnuucday inta ay socdaan khamriga noocyadiisa kala duwan. dalka Mexico waxa ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee dalkaasi. akhyaarta awada nagala xidhiidha intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu doorka roon. haatana ku soo dhawaada qodobadaasi iyo warar kale oo faahfaahsan. madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sulaaya ayaa shir degdeg ah isugu yeedhay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland golaha guurtida salaadiinta iyo boqorada dalka. waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay sidii loogu gurman lahaa labada arday ee walaalaha ee shaqaqadu ay ku dhaxmartay degmada Dharkiingeeyo oo ka tirsan gobolkaasi Sool. shirkan oo gudoominaya madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sulaaya kuna wehelinayay madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane Saleebaan Maxamuud Aadan iyo ku-xigeenkiisa koobaad mudane Siciid Jaamac Cali wasiirada wasaaradaha madaxtooyada mudane Maxamuud Xaashi Cabdi warfaafinta mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid qaybna ay ka ahaayeen salaadiinta iyo boqorada Soomaaliland ayaa ujeedadiisu ahaa sidii loogu gurman lahaa labada arday ee walaalaha ee shaqaqadu ay ku dhaxmartay degmada Dharkiingeeyo oo ka tirsan gobolka Sool. shirkaasi ayaa intii uu socday waxa lagu lafaguray diiradana lagu saaray la iskuna gartay in 21 xubnood oo isugu jira salaadiin boqorro iyo golaha guurtida Soomaaliland ay door muuqdo oo muhiim ah ay ka soo qaataan deminta dagaalkaasi iyo kala dhaxgalida labadaasi arday ee walaalaha sida ugu dhaqsaha badanna ay u baxaan. markii laga soo baxay kulankaasi waxa si wada jira warbaahinta dawladda ula hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland qaar ka mid ah salaadiinta ka qayb gashay kulankaasi iyo golaha guurtida Soomaaliland. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo ugu horeyn kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sharaxay ujeedada kulankaasi. wuxuu shirkaas ahaa macnihiisu sidii loogu gurman lahaa labada beelood ee walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhaxmartay Dharkiingeeyo. sidaa ka warhaysaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sulaaya wuxuu amray habeenkii shaqaaqadu dhacday ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay shaqaaqada iyo dadka walaalaha u kala dhaxgalaan. ilaa maanta oo aynu joogno ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku kala dhex jiraan labada walaalaha ah. waxaa la isla gartay
ومدحوينه دبادنا ودري رجل ضيالة iyo wasiiro iyaguna maanta ilaa maalintii ku sugan magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood maanta waxa la isla gartay guurtida boqorada iyo salaadiinta jamhuuriyadda Soomaaliland tiro 22 ah oo ka kooban salaadiintaas iyo guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii salaadiintii iyo boqoradii guddigood waa wada qorweyn jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku caanamaashay inay ka howlgalaan shaqaaqada jirta oo si dhaxsaana ay u bixi doonaan qaar ka mid ah salaadiinta iyo boqorada ka qayb galay kulankaasi ayaa iyaguna ka hadlay waxaana ugu baaqeen labada arda ee shaqaaqadu ay ku dhaxmartay degmada Dharkiingeeyo in ay joojiyaan dagaaladaasi waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka walaalaha abogooda burcad Soomaaliyo dhibtana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka dulqaado aad iyo aad baan runtii uga xunnahay dhibaatada meesha ka dhacday waxaan idinka rajaynaynaa in idinkuna Ilaahay ka cabsataan dhammaantiina ka wada shaqeysaan nolosha inta hadhay ka wada shaqeysaan nabadda ka wada shaqeysaan nagu sintaan oo magaranaysaa intaan idinku soo gaarayno tulimadiina dhisideeda iyo wanaageeda inaan nagu sintaan cid kasta oo arrinkooda iyo walaalnimadooda iyo wanaagooda ka shaqeynaysana inay gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweeyaan oo ay nabadda iyo nolosha wax walba ka horreysiyaan walaalayaal waxaan aad idinka codsanaynaa annagoo danteena wada wadna ta islaamka wadna walaalayaal inaad na aqbashaan oo aad qoriga dhigtaan oo aad caqliga ka shaqaysiisaan ood nabadda u soo noqotaan ood ilaahay u soo noqotaan bilahii ugu khayrka badnaa ee uu dembi kasta oo la galaana ka weynaa dunuubta kale khayrka la sameeyaana ka weynaa khayrarka kale ayaynu ku jirnaayo walaalayaal allaha dhammaanteen ina garasiiyo madax dhaqameed ahaan annagana waxa weeyaan waajib gaar ah oo nasaaraa oo hadda ka hor nasaaraa waanu ku jiray ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu inala qabto aniga tiiraaye gaaray wax kale leedahay waa abtiyaday waa halkan ka soo jeeday runtii waxa weeyaan tacsi gaar ah ayaan dadka meesha ku dhintay aanu sii dirayaa waxaan leenahay gurmadka waanu ajiibnay waanu soo soconnaa waanuna tegaynaa waxaan leenahay baaq ugu jeedinaynaa walaalaheenna abtiyaday dhibaatadu ka dhex dhacday inay intaa ay ku hakiyaan oo inta arrinka la isugu imanayo qolo waliba ay dacwadeeda ka xakamayso aan leenahay walaalayaal waxaa meesha ka dhacay waan idinka tacsiyaynaynaa wixii dhintay Allah ha naxariisto waxa dhaawacaana Allah ha bogsiiyo waxa dambana Allah ha inooga nabadgeliyo dil gacanteena ah nin waliba diluu ku xukuman yahay mawdka wuu qoran yahay laakiin dil gacanteena in Ilaahay ka nabadgeliyo intiina dambe taasna walaalayaal waan ku talinaynaa ergaan nahay waan soo soconnaa waan idin imanaynaa wixii hore dhacay maahe waxa dambe walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu sintaan oo aan wax dambe oo ka daba dhaca wixii hore dhacay in laga foojignaado waxaan idin leeyahay caqligu ha shaqeeyo walaalnimadu ha shaqayso maanta dalkiina iyo dadkiina waxay idinka qabaan ha shaqayso waa kuwaasoo ciidamadii qarankuna way idinla joogaan xukuumaddii iyo golayaashii iyo dhaqankiina way idiin soo gurmanayaan waana idiin imanayaan waanaynu suumanaynaa ilaahay idinkiina waxaanu baryaynaa ilaahay baryaynaa bisha Ramadaan inagaga dhamaato arrintaas khayr wasa laba xildhibaan oo iyaguna ku hadlayay magaca golaha guurtida Soomaaliland ayaa ugu baaqay labadaasi beelood ee walaalaha in ay joojiyaan dagaalka isla markaana ay nabad qaataan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho mideeda kale waxay yiraahdaan ka noolba kii dhintay dhimaye ka nool ha loo taliyo ka maanta nool baa talayiisu inala gudboonta taa waxaanu leenahay idin weydiisanaynaa idinka baryaynaa nabadda ayaa macaan leh dhadhan leh wax walba ay ku suuroobaan aan nabadgelyada ilaalino marka hore waxaan leenahay dadkaas walaalahaya intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah inoo caafiyo inta nool Ilaahay ha garadsiiyo inay fikiraan ay gartaan inay badbaadiyaan inta dambe ee nool inay u fikiraan
shirkan uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Silaanya uu isugu yeedhay golaha guurtida salaadiinta iyo boqorada Soomaaliland ayaa ah mid ku soo beegmay waqtigiisii wafdi ballaaran oo hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi kulmiye mudane Muuse Bixi Cabdi ayaa gaaray magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama faafaynta warkaasi waxa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga wafdigaasi noola socda Ridwaan Caydiid Ismaaciil wafdi ballaaran oo ka kooban hoggaanka sare xisbiga kulmiye iyo xukuumadda Soomaaliland oo uu heliyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya kulmiye mudane Muuse Bixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga ayaa socdaal shaqo ku tagay gobolada galbeedka Soomaaliland hoggaanka sare xisbul xaakimka talada dalka haya kulmiye iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa magaalada Gabiley kulan ballaaran oo labageesooda kula yeeshay waxgaradka odayaasha iyo madaxda dhaqanka gobolka Gabiley iyadoo si qoto dheer labada geesood ay isku lafagureen xaaladda guud ee dalka iyo qorshayaasha siyaasadeed ee mustaqbalka Soomaaliland wufuudu waxay socdaalkooda uga sii gudbeen magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal iyadoo si diiran loogu qaabilay duleedka magaalada Boorama madaxda gobolka Awdal kuwa degmada Boorama iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Awdal ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay wafdiga hoggaanka xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ka kooban ee socdaalka shaqo ku tagay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal si weyn ayaa gobolada galbeedka Soomaaliland looga dareemaya ku beeritaanka Professor Axmed Ismaaciil Samatar ee xisbul xaakimka talada dalka haya ee kulmiye iyadoo maalinta bariye loo ballansan yahay munaasabad weyn oo xisbiga kulmiye ay ku soo biirayaan siyaasiyiin miisaan culus ku leh saaxadda siyaasadda Soomaaliland oo Professor aqoon-yahan Axmed Ismaaciil Samatar uu ka kow yahay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye mudane Muuse Bixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga ayaa ka hadlay ujeedada uu daaran yahay socdaalkan ay ku soo gaareen magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal صحافتي أنا أقول لك ويا نسكال علينا فبشي عبادتي حتى على نوين صافرين وين صو عشان بشي أروت السيالك أيه نصور ربنا يمكن آدي أدوم هتتي Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama wararka naga soo gaaraya gobolada iyo degmooyinka dalkana waxa ku jira xafladda xarika jarida mashruucan Ayaxlaba iyo Ayaxkow ee biyaha ayaa dadaal ballaaran oo ay ka qabatay wakaaladda iyo waliba wasaaradda biyuhu waxa ay gaarsiiyeen in maanta ay deegaamadaasi biyo cabaan ugu horeyn mashruucan uu maanta xadhiga ka jaray wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha ayaa waxaa hadal ka jeediyey injineer Khaliif oo isagoo ka socday SNDF wuxuuna ka warramay dadaalka wakaaladda iyo hay-adahan ay iyagu u galeen sidii Ayaxlaba iyo Ayaxkow ay u heli lahaayeen biyo mashruucani wuxuu ka kooban yahay marka laga soo bilaabo barkada ku taala xaraf ay biyo ku soo shubto waa 5 kiiloomitir iyo waxoogaa weey 5 kiiloomitir iyo 100 mitir weeye 7 goobood ayaa laga cabaa iskuul iyo 6 keesto waxaan filayaa inay tahay markii uu horeysay oo ama ay halkan ka nasiib badan tahay magaalada Hargeysa bartankeeda meelo badan oo deen Yurubiya helin waxa halkan aan doonayaa inaan uga mahadnaqo cidii mashruucan fulinaysay oo ah mashruuca sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF loo yaqaano waxaana laga yaabaa mustaqbalka haddii Allah uu yiraahdo inay mashruucan sii kordho Maariya guud ee wakaaladda biyaha Ibrahim Siyaad Yunis ayaa isaguna waxa uu ka warramay dadaalka wakaaladda ee sidii ay biyo weyn lahayn dhamaanba dadka iyagoo caasimadda ku dhaqan iyo nawaaxigeedu mashruucan SDF-ta oo ah qaybtii labaad wuxuu ku jihaysnaa 5 kiiloomitir iyo 100 mitir oo beeba la soo dhigay iyo 7 kaalmood laga sameeyay xaafadaha Ayaxwan iyo Ayaxtooy inaan joogno Ilaahay baa mahad nagu guuleeyay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa cid kastoo gacan ka geystay hawsha oo ugu horeyso dawladaha isku tagay sanduuqa horumarinta Somaliland oo gacan weyn ka geystay oo mashruuca ayaga laantood ayna fuleen wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasaaradda biyaha oo iyaga laftooda laantood ay hawshaas fusheen iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo hawlahan kulligood isagu hormuud ku ahaa in mashaariicda SDF-tu sida uu socdaan u shaqeeyaan marwa adna oo kamida dadka muxtarimiinta ee ku nool dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa iyaduna hadal ka jeedisay xaafadda Ayaxlaba oo iyadoo xaafad maanta biyo heshay
waa meel buuralaya waa meel adag waxaa loo samayn karaa biyo barkado biyaha kaydiya oo simid inta loogu xidho biyaha loogu kaydiyo barkado ballaadhan oo dhulka ka hooseeya jiingadna loogu daboolo kuwaas oo marka jiilaalku yimaado ee biyahan dusha ka soo baxaya dhammaadaan ay ka dhaansadaan waxaan codsanayaa intii ku baxday intan in la eg in loo huro wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka oo munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay sida xukuumad ahaan ay ugu dadaalayaan in baahida biyuhu ay noqoto ta koowaad xaafadda magaalada bartankeeda aan deganahay jaamacadda agteedu biyo ma hesho mashruucanna wuxuu ka mid yahay mashruucii biyo ballaarinta waxaa imika qolada saxaafadda muddo laga joogo 7 bilood geeddeebla anagoo joognaan waxaa laga yaabaa in hargeysa lagu cabo bartamaha sanadka biyuhu wada gaadhaan qaybtii u horreysay waa innagan maanta marayna waa intii dhanka xaraf ka soo bilaabatay waxaynu ugu xigaa iyadoo loo ballaarin doono ballantaanu qaadayno biyaha la soo barkadda kaydka halkan la keenayo alhuda ee isha boorame in la soo gaarsiin doono lagu xidhi doono halkan oo biyuhu aanay ahayn intan waa bilowgii laakiin way soconayaan kolka warshadaas barkadaasi timaadee biyo ballaarinta hargeysa weyne timaadana waa lagu soo xidhaya halkan wasiirka khayraadka biyaha dalka jamhuuriyadda somalilan mudane baashe oo munaasabadda ka hadlay ayaa isaguna sheegay howlaha ballaaran ee wasaaraddiisa ee biyo gaarsiinta iyo baahitiridda biyaha ee guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka weynaba caasimadda dalka ay xukuumadda waddo waxa weeye dalka jamhuuriyadda somalilan meesha ugu badan ee xoogga la saaray ee lacagta ugu faraha badan loo raadiyey ee madaxweynuhu axmed maxamed maxamuud siilaan iyo hormuud ka ahaa waxa weeye magaalada hargeysa oo caasimaddii dalka meesha ugu dadka badanna ah lacag fara badan oo 60 milyan ayaa loo soo helay oo ku jirta qorshaha oo tiinanu ka mid tahay marka waxaan rajaynayaa insha Allah sanadka 17ka horaantiisa in hargeysa biyo badan hesho ama biyo wada gaaraan insha Allah idinkana runtii waxaan idin ballan qaadanaynaa inaan dadaal dheeraad ah idin samayno in kaydaad heshaan waayo waqtiga jiilaalku oo laga yaabo 3-4 bilood inaad biyo idinka go'aan sida hadda aan warka ku helay laakiin xaggaana waxaa laga samaynayaa dhaamam hoostaasi biyuhu u kaydsamaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland ayaa tababar u furay 785 macallin oo ka kala socday gobollada kala duwan ee dalka sida uu faahfaahinta warkaasi loogu diyaariyay waryahaga Jacfar Axmed Bade tababarka macallimiinta ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare bisha barakeysan ee Ramadaan ay u qabatay macallimiin tiradoodu ay dhan tahay 785 macallin oo kamid ah macallimiinta ka howlgala 6 gobol ee dalka Somaliland ayaa guud ahaanba ka furmay gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka kulanka u ballaaran oo ka qabsamay xarunta dugsiga Sheekh Bashiir oo ay ku galayeen 315 macallin oo si rasmi ugu furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Yusuf Ismaan Garas ayaa wareyn madashaasi waxaa la kooban oo mahadnaq iyo dardaaran isugu jira ka jeediyay gudoomiyaasha gobolka Maroodijeex waaxda bariga iyo waaxda galbeed oo iyagu tilmaamay in tirada macallimiinta madashan fadhida ay yihiin macallimiin la soo xulay isla markaasina loo baahan yahay in ay ka faa'iideystaan muddada uu tababarkaasi socdo xubno ka mid ah hay'adaha la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in wasaaradda ay la garab taagan yihiin wixii taakulaha la xidhiidha dhinaca horumarinta macallimiinta agaasika dugsiyada hoose dhexe wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Marwo Raxma Ibraahim Gadiid oo iyana madashaasi ka hadashay ayaa si diiran u soo dhaweysay tababarkan oo ay ku tilmaantay inuu yahay tababar kor loogu qaadayo tayada waxbarasho ee macallinka macallinku waa shayga kaliya ee waxbarashada maanta tayeyn kara macallinka haddaan waxbarashadiisa aan mar walba la ogaanin korna loo qaadin macallinku ardayna inoo soo bixi maayo dalkuna wuxuu ku dambeyn doonaa noocan la garanayn marka sanadkan iyo sanadkii ka horeeyay wasiir waxay wasaaraddu ku guuleysatay war jaamacadaha u tababari jiray macallimiinta laakiin sanadkan iyo fasaxii horeba wasaaradda
ayaa ku dhiiratay inay tababarka macallimiinta iyagu dhabarka saartaan. madaxa tababarada ee dugsiga tababarka macallimiinta dowladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Maxamed Cabdilaahi Buuni ayaa isna si qoto dheer uga warramay tirada macallimiinta iyo guud ahaanba sida hanaanka u socon doona tababarka ballaaran ee maanta u furmay macallimiinta ku dhaqan gobolada iyo degmooyinka dalku. saddex shay baa macallinku dheefaya isagoon isbedelinba mar alla markuu daacad u shaqeeyo iska jirayaa imika aniga ardaydeeda qaar badan ba ardaydeeda la mooday in aniga macallin ay ahaayeen isbedeli maayo macallinku meel alla meeshii aad tegtana wakiil baa kuu jooga dibad iyo gudaba tii ilaahayna de meesha ku taalla hadda si fiican u shaqayso saddexna si faa'iida ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Yuusuf Cismaan Garas ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay iska xil saarayso in ay kor u qaado aqoonta barayaasha wax ka bara dugsiyada dawladda isla markaasina dhawaanta ay wasaaraddu gaari doonto isku filaansho dhinaca tababarka macallimiinta gacantana ay ku hayso sidii loo hirgelin lahaa dugsigii tababarka macallimiinta ee dawladda. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa oo ay runtii dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland inagu waajib ah inaynu ka maarmi doono maalin ay noqotaba hay'ad wax naga caawisa iyo bari aynu galno oo runtii qorshaha wasaaradda ay ku jirto bal sidii macallimiintu ay u heli lahaayeen tababar joogto ah oo aanu noqon had iyo jeer mid ka kala go'a taasi la ajligeed iyagoo inuu runtii uga mahad celinayno hay'adaha nala shaqeeya waxa ay wasaaraddu hadda gacanta ku haysaa oo dhawaan ilaa bisha 7 ama 8 bilaami doona dhismihiisa macadka tababarka macallimiinta qaranku yeelanayo dowladda Soomaaliland in macadkaasi uu markaa inaga kifaayo yeelo amaba aynu adlista cala laqal ku helno goobayno macallinka kan magaalo kale ka yimidna aynu seexin karno kii magaalada joogayna wax loogu dhigi karo waayo markaynu weelkeeda yeelano waad ka haqabaxaysaa markaa shay laakiin in loo samayn doono marka macadka lagu guuleysto wixii ka dambeeya liisan iyo taariikh nololeedkiisa iyo qaab loo hubiyo aan dugsi dambe walaa ka gaarka loo leeyahay waa hamiga nagu jira hadii ilaahay qadaraamo kuwa dambe fulin doonaan hadii waqtigu noo saamixi waayo inaan iskuulna uu ka qayb gali doonin waxna ka dhigi doonin macallin liisan wasaaradda waxbarashada ka sida wariyaashada looga soo warama gobolkaasi Togdheer ayaa warka noo soo diray barasaabka gobolka Togdheer iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo ka koobnaa saraakiisha ciidamada kala duwan duqa degmada Burco iyo xubno kale ayaa socdaal shaqo oo qaatay 2 maalmood ugu baxay deegaanada Balidhig Xaaji Saalax Duruqsi iyo Cibiyaboor iyo Xidho Zibidley Daryeley Dhagaxdheer Habeedle iyo deegaano badan oo kale oo ka tirsan hawdka iyo xuduudka gobolada Daadmareer iyo Togdheer la leeyahay Itoobiya iyadoo sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada qaranku gaadheen degmada Balidhig si ay uga qayb qaataan xaaladda nabadgelyo ee deegaanadaasi socdaalkan oo muhiimadiisu ahayd sidii bulshada deegaanadaasi loogu wacyigelin lahaa nabadgelyada inay ilaashadaan isla markaasna loo dareensiin lahaa muhiimadda nabadda ayay ka hadleen wafdiga barasaabka gudoomiyaasha degmooyinka iyo weliba waxgaradka deegaanadaasi aad baan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad haddaan anagoo magaca degmada Balidhig ku hadlaynaa gurna hawsha ay ka soo qayb qaateen ee ay u soo dhaqaaqeen ee ay u soo jeedeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay garabkiina yahay hagalo nabadgelyada Balidhig ama meel kasta oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland waa waajib qaran oo ina saaran nabadgelyadu cid walba wadan dambay inoo tahay inaga shacab ahaan ciidan ahaan Soomaaliland ahaan iyo cidda xadka inala leh kala dhinaca kalaaba looma baahna ama uma baahnin cid xumaysa nabadgelyada annagu waa waajibka meel kasta oo qaranka leeyahay oo xadka marka wax ka dhacaan ama dareenka soo yeero inaanu tagno oo u gurmano waa laga maarmaan waa ragii la yiri nin lagu seexdo ha seexan ayagu seexan maayaan laakiin idinku xaqiiqatan suxuurta wadaadku intoosiye mooyaane u kicimaysaan ciidanka caynkaas baanu maanta idinka tegin u soo jeedinaynaa oo ka codsanaynaa madaxweynaha qarankana inuu naga ogolaado codsigeeda ah in barahan aynu joogno muhiimkaas ilaa Duruqsi ilaa Balidhig intan gobolka Togdheer la yiraahdo in ciidamo militariya oo deegaan ku ah oo tignikooda wata ay joogaan
oo shicibkayaga aanu mas-uulka ka nahay ilmo yar oo dhallinyaradan halkaa fadhiya la midi aanu maalin walba xaqaqajin codsigaana madaxweynehan u soo jeednay biidnillahi waa nalka aqbalaya nabadgelyadu cid gaara ummadan aha cid waliba caafimaad baan jirayn waxbarashaan jirayn nabad kalaan jirayn salaadaasaan saa loo wada tukanayn haddaanay nabadgelya jirin waxaan mar iyo lababa idin leeyahay marka ugu horreysa reer beledhig inaad nabadgelyada prioritiga siisaano kool ka dhigtaan nabadgelyada haddii ilaha idhaahdo oo aanaydin u labalabayn annaga gurmadkayagu iyo imaatinkayagu waa inaanu moral idinka idin dhisnayahay inaanu niyadda idin dhisno inaanu nabadda sugno xuduudaha somalilan ee gobolkan togdheer inaanu sugno halkanaanu ka bilaabaynaa ilaa iyo xaaj saalax waanu soconaynaa caawa goob kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kastana waanu maraynaa dibna ugu dulqaadan mayno mana dhici doonto in dadkayga lagu handido iyagoo dalkoodii jooga ma dhacayso dib u dhici mayso socdaalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii dad shacaba ay ciidamada liyu booliska Itoobiya ku laayeen tuulada Jaamac Dubad ee ka tirsan Gaashaamo sidoo kalena calanka Soomaaliland ku jeexjeexeen hadidaadna u geysteen dadweynaha degmada Beledhig Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland maayirka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko ayaa kormeer ku tagay dhismaha waddo ballaaran oo ka kooban 200 kilomitir oo loo hirgelin doono caasimadda Hargeysa faahfaahinta warkaasi waxaa loo diyaariyay wariyaha Cabdiqaadir Cabdilaahi Nuur Almis duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko iyo weheliyaan xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa kormeer shaqo ku tagay dhismaha wadada 200 mitir ee dowladda hoose caasimadda Hargeysa ay ka wado duleedka waqooyi ee caasimadda Hargeysa taasoo ay dowladda hoose u qorsheysay in lagu soo wareejiyo guud ahaanba magaalada Hargeysa dhismaha wadada 200 mitir ayaa banaanteeda hore waxay ka bilaabatay duleedka waqooyi ee degmada 26 Juun iyadoo u gudubtay degmada Gacan Libaax isla markaasina ku sii socota degmada Axmed Macalin Haroon injineer Khalid Sheekh Habiib iyo xildhibaan Xasan Shaar oo kamid ah howlwadeenada gacanta ku haya dhismaha wadada 200 mitir ayaa ka warbixiyay iyagoo sheegay in waxqabadka dowladda hoose ay kamid yihiin ballaarinta iyo qorsheynta wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u noqon doona caasimadda Hargeysa waxaana ay tilmaameen in wadada 200 mitir ay ka mid tahay qorshayaasha kala duwan ee horumarineed ku hogaaminayo duqa caasimadda Hargeysa golaha deegaanka waxaanu joognaa wadadii 200 ahayd ee magaalada Hargeysa ku wareegaysay waad aragtaa nooca fiidiyowga ku jiraan degmada 26 Juun imika waxaan maraynaa Gacan Libaax iyo Macalin Haroon ma dhexdoodii baan maraynaa magaaladana way ku wareegaysaa oo sideeda degmo magaalada way ku wareegaysaa waana qorshaha maayirku lagu hogayo waxa kaloo naagaya xildhibaanada soo dhexbay xildhibaan Xasan Shaar maanta wadadii waxaa muuqata laba degmood oo isugu soo gudubtay Juun iyo Koodbuur وهذا شون يروح متشيدان iyo Gacan Libaax وهذا Macalin Haroon lafti Macalin Haroon aan joogno wadadii wararkiisa waxa weeyaan gaadiidkii dadkii ku waaweynay marayaan magaalada hadii la yiraahdo bar oo ku wareejinayna wadada sidii aad marka nagu siisay qalab fara badan oo lagu caawiyay ninka la yiraahdo ganacsadaha weyn ilaahay ajir iyo xasanada ka siiyay aad u daleelaya caasimadda محمد السعيد مدن ماير سيدي عاد هريبه وشيكتي قلبكي ونو سو كرديي سيدي عاد نو شيكتي قلبكي لبادنا ونو سو غاري waxaanu doonaynaa oo naga hortimid buurtaas oo buur adaga caasiyaal waaweyn leh buurtaas qalabkii burburinayna waad noo soo dirtay ilaahay mahadii maanta ayaan ka bixi doonaa xildhibaan Axmed Ali Haybe xildhibaan Mubarak Cabdimalow iyo xildhibaan Abbas oo kamid ah golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa dhankooda iftiimiyay in wadada 200 mitir lagu wareejin doono guud ahaan degmooyinka caasimadda isla markaasina lagu galeeyahay in samxadda lagu yareeyo gaadiidka korna lagu qaadayo bilicda caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko maayirka caasimadda Hargeysa ayaa uga mahad celiyay injineerada gacanta ku haya xildhibaanada wada hawsha lagu maamulayo wadada 200 mitir ee ka socota duleedka waqooyi caasimadda Hargeysa
hargeysa iyo shirkadda Sam Cable oo ka qayb qaadanaysa dhismaha wadadaasi waxaana ugu dambeyntii uu maayirku baaq u diray dadweynaha caadaystay inay dhex degaan wadooyinka isagoo sheegay in dhammaan bacagta la marin doono dadka dhex diga hadda waa 7 shay inta shaqeynaysa waa 3 baldowser shawal iskaafeeter jack hamarle hooyadii shidaalka iyo gaarigii la shaqeynayay wadadani waxa imika maraysaa degmadii afraad bay gelaysaa insha Allah taala afarta degmee kalena insha Allah taala muddada inta ka badan socoto ayaan ku dhameyn doonaa iyadoo subaxdii iyo habeenkiiba laga shaqeyn dadweynahana waxaan soo jeedinayaa inay gacan siiyaan ee ayna marnaba ka horiman qof wada dhistay amba wada degay sida aqaladaaba loo dumiyay un baa loo duminaya magdhowna male meel la dejinayaana ma jirto taad wada degto oo wada dhisatay in magdhow laga siin doono ama meel kale lagu dejin doono qofka wadada waa la banaynayaa cid wax laga weydiinayana ma jirto Abdulqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka Hargeysa Aqoonta hawada nagala xidhiidhay halka warkaasi idinka imanaya waa xarunta guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada Hargeysa dhinaca wararka caalamkana xukuumadda dalka Faransiiska ayaa goobaha ciyaaraha ka mamnuucday inta ay socdaan khamriga noocyadiisa kala duwan wariyahayga Cabdi Almis ayaa faahfaahinta warkaasi loo diyaariyay dalka Mexico waxa ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee dalkaasi waxaana xabsiga loo taxabay mid ka mid ah gudoomiyaasha macallimiinta sida uu mar kale faahfaahinta warkaasi inoogu diyaariyay wariyahayga Cabdi Almis warkii oo khiyaarta qiimaynta qadarinta iyo ashmada badan ee hawada nagala xidhay aad kala socoteen xarunta guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadayaal wanaga intaasi waad ku mahadsantihiin sida qiimaha iyo sharafta ay la socotaan baahimaha kala duwan ee telefishinka qaranka Soomaaliland warkan warlamida intaan ku kulmi doono waa Axmed Sakdaar Xasan iyo khiyaartii kala duwan ee igala qayb qaadatay diyaarinta warka oo dhamaantiiba ku dhaafaya meel kasta oo aad joogtaan Ramadan Kareem